ugu horeyn wafdigu waxa safarkiisa wuxuu ku aadanaa martiqaad uu ka helay boqortooyada Sacuudi Arabiya gaar ahaan boqorka taas oo ku aadanayd in laga wada hadlo arrimo aad iyo aad muhiim uga ah labada dal xiriirkooda dhacdooyinka geeska Afrika ka jira iyo dhacdooyinka mandiqada guud ahaan soo dhaweyn waxaan wafdiga oo la kulmay runtii tii lagu yaqiinay boqortooyada Sacuudi Arabiya qiimaha badnayd ra'iisul wasaaraha waxaa lagu qaabilay levelka soo dhaweynta isaga wafdigiisa midka ugu sareeyo kulamo muhiim ah oo runtii waqti fiican qaatay waxa uu la qaatay boqorka dhaxal sugaha wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale oo ugu horeeyo ninka amiirka ka ah amba xukumo magaalada Riyaad Jidda sidoo kale labada dal waxay ka wada hadleen arrimo aad iyo aad ay u xiiseynayeen oo muhiim ah gunaanadkooda waxa uu ahaa in la iska kaashado qadiyadaha haatan taagan amba ha noqdaan kuwa amniga amba ha noqdaan kuwa siyaasadda boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay ban la qaaday inay Soomaaliya isgarab istaagayaan kadib warbixin waafi ah oo ay ka dhageysteen isbedelada mugga leh macnaha leh tayada leh ee Soomaaliya ka dhacay muddooyinkii ra'iisul wasaaruhu xilka u hayay madaxweynuhu xilka u hayay keenay in Soomaaliya adduunyadu aaminto gaar ahaan hay'adaha dawliga ah ee maaliyadda sida sanduuqa lacagta bangiga adduunka Yurubiyaanka arrimahaas runtii markii warbixinta uu bixiyay ra'iisul wasaaruhu aad iyo aad loo soo dhaweeyay boqortooyada Sacuudi Arabiya waxay ballan qaaday inay taakulayn mugle oo macno leh oo xagga dhaqaalaha ah ay ka taageeri doonto waxaa xusid mudan ma aha markii ugu horeysay dawladda Soomaaliya iyo Sacuudi Arabiya iskaashadaan ka niqaashaan qadiyada muhiim ah boqortooyada Sacuudi Arabiya ay iclaaniso ama ay soo gudbiso inay Soomaaliya tallaabooyinkaas ay ku garab istaagi doonto kaliya waxaa ku soo kordhay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dhankeeda inaanay ka imaanin wax daah ah amba gaabis ah waxaana rajaynaynaa muddada soo socoto inay noqon doonaan xiriirka labada dal mid aad iyo aad u sii xoogayso lana meel mariyo dhammaan wixii laga wada hadlay ku aadanaa iskaashiga dhinacyada kala gedisan leh dhaqaalaha leh siyaasadda leh amniga leh arrimaha sidaas ayay u dhaceen dawladda Soomaaliyana waxaa ka go'an sida ra'iisul wasaaruhu amray inaan bulshada Soomaaliya gaarsiiyo in sida ugu dhaqsaha badan ugu tayada badan ugu hufan loo meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey oo aanay qaadan maalmo laakiin ay noqoto howlgelintooda laga bilaabo saacadaha soo socdo oo xafiisyada ku shaqada leh sida xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha ay khusayso ay ka howl bilaabaan maalin shaqeedka oo ugu soo horeeyo sabdiga waxaan rajaynaynaa bulshada Soomaalida inay ka faa'iideystaan safarka ra'iisul wasaaraha waxyaabaha uu isla soo gaaray waxaan rajaynayaa Sacuudi Arabiya Soomaaliya in xiriirkoodii awalba xooganaa aad iyo aad u sii xoogayso isdhexgalkuna aad iyo aad u sii xoogayso muwaadin kasta Soomaaliya in uu dareemo safarka dawladda Soomaaliya ee xagga ku tagtay heshiisyada ay soo gashay faa'iidadooda maalmaha soo socda bilaha soo socda sanawaadka soo socda ay dareemaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogto guul iyo horukac iyo dawladooda himilada ay leedahay inay garab istaagaan waa mahadsantihiin